madaxweynaha cusub ee Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta Khamiis waxa ku dhawaaqay xubno ka mid noqon doona golaha wasiirada xukuumaddiisa cusub kuwaasi oo ka kooban 3 xubnood oo markaas isugu jiray wasiiro iyo wasiir ku-xigeenno. madaxweyne Muuse Biixi ayaa waxa uu gobolka Awdal u magacaabay 3 wasiir oo markaas uu kala siiyay wasaaradda ganacsiga, warshadaha iyo dalxiiska, wasaaradda beeraha, wasaaradda qorsheynta qaranka. wasiiradaasi uu madaxweyne Muuse Biixi siiyay gobolka Awdal ayaa shacabku ay hayeen kuwa si weyn isku weydiinayaan wasaaradaha magacaabay iyagoo shacabku ay si weyn ay u filayeen in madaxweyne Muuse Biixi uu gobolka Awdal uu siiyo wasaaradaha waaweyn ee dalka ka jira, balse arrintaasi ma noqon mid dhacda. Cawaale Ibraahim Shirwac Loodoon, wasiirka wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta qaranka. Axmed Muumin Seed Habane, wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha. Maxamuud Xasan Sacad Iidle oo loo yaqaan Saajin, wasiirka wasaaradda ganacsiga, warshadaha iyo dalxiiska. wasiirka cusub ee wasaaradda ganacsiga, warshadaha, dalxiiska Maxamuud Xasan Sacad Saajin waa shakhsi Soomaaliland balse ganacsade qurba joog ah wuxuuna ka mid yahay siyaasiyiinta cusub ee Soomaaliland iyadoo shaashadaha siyaasadda Soomaaliland markii ugu horeysay uu ka soo dhex muray waqtigii lagu jiray ololaha doorashada madaxtooyada Soomaaliland, wuxuuna ka mid ahaa kaambeynadii ugu cuslaa xisbiga kulmiye gobolka Awdal taasoo uu huray juhdi iyo maalba. wasiirka cusub ee ganacsiga Maxamuud Saajin waxa muddooyinkii ugu dambeeyay ku noolaa dalka gudihiisa, wuxuuna ka mid ahaa shakhsiyaadka sida weyn loogu tirinayay inay ka mid noqon doonaan golaha wasiirada xukuumadda Muuse Biixi. wasiirka cusub ee wasaaradda qorsheynta qaranka Cawaale Ibraahim Shirwac oo ah qurba joog ku noolaa dalka Ingiriiska ayaa ka mid ah siyaasiyiinta cusub ee ka soo dhex ifay xukuumadda Muuse Biixi Cabdi, taasoo wasiirka cusub inta badan ahaa mid aan laga arag fagaaraha siyaasadda Soomaaliland, balse waxay wararku sheegayaan inuu ka mid ahaa shakhsiyaadka sida weyn ugu ololeeyay xisbiga kulmiye ee gobolka Gabiley. wasiir Cawaale Ibraahim Shirwac ayaa ahaa shakhsiyaadka sida weyn aan looga filayn inay ka soo dhex muuqdaan golaha wasiirada cusub ee uu soo dhisayo xukuumadda Muuse Biixi Cabdi. wasiirka cusub ee wasaaradda beeraha Soomaaliland Axmed Muumin Seed ayaa waxa uu ka mid ahaa siyaasiyiinta muddadii dambe ugu cadcadda gobolada galbeedka Soomaaliland, horena waxa uu ka mid ahaa xisbiga wadani, waqtigii dambena waxa uu ahaa siyaasiyiinta sida weyn u taageersan siyaasadda xisbiga kulmiye. wasiir Axmed Muumin Seed ayaa waqtigii ololaha doorashada madaxtooyada socotay ahaa shakhsiyaadka fagaaraha siyaasadda gobolka Awdal laga arki jiray, balse waxaa jiray siyaasiyiin miisaan culus leh oo ka tirsan xisbiga kulmiye kuwaasi oo aad uga firfircoonaa siyaasadda gobolada galbeedka Soomaaliland.